dalka Sacuudi Carabiya ayaa iyaguna ku dhawaaqay in ay xarun nuclear suubsanayaan. xaruntan ayaa la sheegay in noqon doonto xarunta tabarta ee dhinaca nuclearka ah, taasoo ay markii guuleysay warbaahinta rasmiga ah ee dowladda ay shaacisay. Amiir Cabdallah bin Khalid Sacuud oo ah gobonatooraha xarunta loo bixiyay The International Atomic Energy Agency (IAEA) ayaa la hadlay xaruntaasi loo bixiyay, wuxuuna u sheegay inuu ka mid yahay xubnaha ururkaasi ku jira caalamiga ee Sacuudiga u qaabilsan. sidaas daraaddeedna waxa uu sheegay in la sameeyay xarun loo bixiyay The Saudi Nuclear Energy Holding Company, taasoo noqon doonta ayaa la yidhi xarun dhinaca nuclearka lagu bacrimiyo. Sacuudigu hadda ka hor ayuu ka diiday dalka Mareykanka dalal ay ku jiraan inuu saxeexo heshiiska loo yaqaano inaysan hub samaysanaynin laakiin tabarta kale ay suubistaan, halka dalka isku tag Imaaraadka Carabtu arrintaas uu saxeexay kadibna laga caawiyey. hase yeeshee boqortooyada Sacuudiga ayaa sheegtay in wasaaradda warshadaha tabarta iyo weliba macdantu ay goor sii horeysay amar u qabto suubinta xaruntaas dhex. Maxamed bin Salmaan bin Cabdilcasiis oo aragtida 2030 vision-ka wata ama aragtida 2030 loo yaqaano ayaa goor sii horeysay sanadkii 2017 wuxuu xaqiijiyay in dalkiisa uu suubisan doono nuclear haddii ay dalka Iran ay ku dhaqaaqaan siyaasi dhankooda. dhanka kalena waxaa xaruntan la sheegay in ay haysato wax loogu tilmaamay in ku filan oo uranium-ka waxa loo yaqaano maadada laga dhaliyo tabarta nuclearka, taasoo boqorka dalkaasi boqor Salmaan bin Cabdilcasiis oo horaantii bishii iyo horaantii bishii February uu sheegay in dalkiisu uu qani ku yahay arrintaasi. dhanka kale Sacuudigu waxay dhegta dhiigga u dareen ilaa iyo 81 qof oo la sheegay in ay ku eedeysan yihiin dambiyo ay ka mid yihiin dil caruur iyo dil dad waaweyn iyo sidoo kale dambiyo dhinaca argagixisanimada iyo inay ku jireen xubno argagixisa iyo inay aaminsanaayeen wax loogu yeedhay afkaaro shaydaani ah. wakaalada wararka ee Sacuudi Arabia ee loo yaqaan Saudi Press Agency ayaa sheegtay in ay dilkan u ahaa kii ugu ballaadhnaa ee dil wadareeda ee dhaca sanadihii ugu dambeeyay, iyadoo la sheegay in dilkii ugu ballaadhnaa uu ahaa kii 67 qof lagu dilay sanadkii 2021, laakiin sanadkan uu ku curtay in 81 qof hal mar loo daayo seef, taasoo dowladda dalka Sacuudi Arabia isticmaasho. xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Anthony Blinken ayaa waxa uu markii ugu horeysay qiray in lacag gaaraysa $2 milyan ay bil kasta ku bixiyaan ilaalinta ammaanka xogayihii isaga xilka ku wareejiyay ee hore ee dalka Mareykanka Mike Pompeo iyo ergeygii gaarka ahaa ee madaxweynaha hore ee dalka Mareykanka Donald Trump u qaabilsanaa Iran ee loo jiray Brian Hook, kuwaasoo la sheegay in ay ka mas'uul ahaayeen dhacdooyinka dhinaca dhaqaalaha jilbaha ugu xidhay dhulka dalka Iran ee loo yaqaanay maximum pressure. siyaasadii maximum pressure ama siyaasadda waxa loo yaqaan ciqaabta ugu sareysa, cadaadiska ugu sareeya oo ahaa siyaasadii Donald Trump ee dalka Iran dhaqaale ahaan lagu burburiyay ayay labada nin ahaayeen kuwii faylkaas gacanta sida gaarka ugu hayay. haatan waxaa la sheegay inay sidoo kale ku eedeysan yihiin Iran ay u qooshay dilkii jarankoodii Qasem Soleimani inay ka mid ahaayeen raggii erayada ugu dambeeyay ee dhinaca talooyinka kula wadaagay Trump. haatan waxay sheegtay dowladda dalkaasi Mareykanka gaar ahaan waaxda arrimaha dibadda tan iyo bishii Agoosto ee sanadkii hore ilaa iyo bishii February ee ayaantii dhawata dhamaatay 2 asbuuc ka hor inay ku baxday lacag gaaraysa $13 milyan sida wakaalada wararka Associated Press oo iyadu xogta rasiidhada qayb ka mid ah heshay. dowladda Mareykanka ayaa qiratay in 24 saacba labada nin la ilaaliyo, sidaa daraaddeedna $2 milyan ay ku baxaan, wuxuuna noqday wasiirkii ugu ilaalada badnaa caalamka. madaxdii hore ee ay xataa Mareykanka qaarkood sida looga ilaaliyo ayaa la sheegay sida loo ilaaliyo Pompeo waa ninkii soo xidhay markuu uu ahaa taliyaha sirdoonka hay'adda CIA dalka Mareykanka heshiiskii dhex maray madaxweynihii hore Mareykanka iyo weliba hogaamiyaha dalkaasi waqooyiga Korea Kim Jong Un. waa halka Soomaalidu ay marka qaarkood iska weydiiso awood ay ku wareerto awoodda ninka sirdoonka ah. ninka sirdoonka waa ninka ugu awooda badan dalka oo dhan. madaxweynaha mararka qaarkood wuxuusan ogeyn buu ogaadaa.